kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ku dhawaaqday saxiixa ciyaaryahanka difaaca dambe kaga ciyaarayay kooxda Juventus xidiga lagu magacaabo Caldara. Milan ayaa xidigan la yiraahdo Mattia Caldara soo gabagabaysay qiimihiisa saacadii la soo dhaafay 35 milyan oo lacagta Euro-ga ah ay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta Juventus, waana isla qiimihii xil ciyaareedkii hore ay kaga soo qaateen xidiga lagu magacaabo Leonardo Bonucci. Caldara ayaa Juventus kaga soo biiray bishii January kooxda kubadda cagta Atlanta, balse ciyaaryahankan ayaa kamid ahaa xidigii ugu muhiimsanaa ee kooxda kubadda cagta Juventus ee difaaca dhex ka ciyaarayay. 24 sano jirkan ayaa ku soo laabtay kooxda Juventus xagaagan, balse Juve ayaa si dhaqso leh u iibisay sababtoo ah amaah ayuu ku joogay kooxda kubadda cagta ee Atlanta. Darteeda kooxda kubadda cagta Juventus ayaa xidigan iska fasaxday, wuxuuna qayb ka ahaa heshiiska uu Leonardo Bonucci ku aaday kooxdiisii hore ee Juve. Heshiiskan 3 geesoodka ah ayaa ugu dambeyn la soo gabagabeeyay sababtoo ah Milan way ku dhawaaqday xidiga lagu magacaabo Gonzalo Higuain iyo ciyaaryahan Mattia Caldara, halka Juventus iyana ay ku dhawaaqday xidiga lagu magacaabo Leonardo Bonucci inay dib u soo ceshteen.